Ma ogtahay xanuunka COVID-19 amase coronavirus inuu mar labaad ku soo labakacleeyay dunida isagoo ka dhibaato badan sidii hore si dhaqsaana u faafaya. Haddaba cudurkani oo asiiba sanbabada amase waxa loo yaqaan habdhiska neefsashada. Muwaadin haddaba waxa kugu waajibay inaad ilaaliso caafimaadka naftaada, qoyskaaga iyo bulshada kugu xeeran. Haddii uu ka asiibo cudurkani, waxa uu astaamihiisu kaaga soo muuqanayaan 2 ilaa 14 maalmood. Oo haddii aad dad la macaamisho aad u gudbinayso fayraskan, inta badan waxaad isku arkaysaa xumad xad dhaaf ah, qufac qalalan iyo madax xanuun siyaada. Hase yeeshee nooca cusub ee COVID-19 mararka qaar iskuma arkisid wax astaama amase way yar yihiin. Haddii aad soo gasho kijada guriga isla markaana aad qufacdo amase hindhisto adiga oon isticmaalayn wax afsaara, waxaad si sahal ah ugu gudbin kartaa dhammaan xubnaha qoyska. Kadib haddii qof kale oo qoyska ka mid yahay taabto weelka agdhow, kadibna uu taabto afkiisa amase sankiisa, si aad u ilaaliso naftaada, qoyskaaga iyo bulshada aad la nooshahay, fadlan ka taxadir salaanta gacanqaadka. Dadka kale u jirso masaafo dhan ugu yaraan 1 mitir ilaa 2 mitir. Si joogto ah u maydh gacmahaaga ugu yaraan markaad joogto 20 minit adigoo isticmaalaya alcohol amase saabuun. Ha tagin meelaha lagu buuqsan yahay ama suuqyada haddii ayna jirin dan kugu khasbaysa.